kulanti wacan saaxiibta qiimaha badan meel walba dunida ka joogtaan dooro wanaagsan isku soo laabasho wanaagsan qodobada maanta aan intayna waxaa ka mid ah gooska labaad ee laga soo bandhigay taxanaha herjaya xalqadiisii 28 oo aan macluumaad idinkaga wadno qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa mid ka mid ah taageerayaasha jilaga canka Bravas ee koonfur ka soo jeedo oo meel dheer foore ku dhaxan jabay inuu iska soo tuuro doono haddii uusan la kulmin jilaga uu taageeray ee Bravas qodobka saddexaad waxaan ku falanqeyn doonaa ganacsiga filimada tiyaatarada ku cusub ee Tanhaji iyo waliba Jabak halkuu maray ganacsigooda keeba fashilma keebaas guul weyn gaaray la saddexdaas mowduuc ayaan maanta idin falanqeyn doonaa qodobka koowaad intaynan ka horbarin kalaanka haddii aad ku socoto subscribe saaro sidoo kale tan saaxiibta la wadaago share dheh warbixinta hadda ka heshay like inoo saar wixii faali comment iyo fikirkaada hoos inoogu reeb waa mahadsantiin qodobka koowaad aan ka hormarno waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay gooska labaad ee xalqada 28 taxanaha herjaya kaasoo si weyn loo wada sugaayay waana xalqad xiiso weyn wadata aadna loo soo daahiyay in xalqada gabi ahaanteedba la soo bandhigo xalqadan ayaa la daawan doonaa 17 bisha Janaayo kuna beegan maalin Jimco ah sababta ay u soo daahdayna ayaana lagu sheegay in jiliyaasha ku jireen fasaxa sanadkii mar ay helaan si ay nasiino u galaan haddaba hadeer shaqada dib ay ugu bilaabeen oo dib ay ugu soo laabteen maalmo yar ayaana ka dhiman inta laga daynayo herjaya xalqadiisii 28 gooskan ayaa kaliya wuxuu u gariyay lamaanaha taxanaha ugu weyn ama hogaamiyaasha ay kala ah Miiraan iyo Reyyan waxaana lagu tusaa iyagoo isku qiiroonayaan sidoo kale jaceyl muujinayaan waxay ku jiraan jaceyl waxaana mar kale ku arkaysaa muuqaalka Miiraan iyo Reyyan oo wadaagayaan Shumiska Miiraan ama isdhunkanayaan taasoo xiiso weyn leh muuqaalka wax kale kuma arkaysid aan ka ahayn labadooda oo jaceyl wadaagayaan haddii aad doontana muuqaalka waxaad ka heli kartaa YouTube-yada iyo meelahaas lagu soo bandhigay waa gooska labaad ee taxanaha herjaya oraah ahaan muuqaalka ay adeegsanayeen waxaa ka mid ah Miiraan oo dhahayo nolosha qiyaano badan ayaan ku arkay dhib badanna waan la kulmin xilli Reyyan ay ugu jawaabayso dhib walba iyo khiyaano walba aan la kulno si wada jir ayaan la dagaalamayna noloshana horumar weyn ayaan ka gaaraynaa ayay leedahay oo macnaha aan isbahaysano mar walba yeenan kala fogaan ayay ka wadaa kadib Miiraan ayaan dhahayo Reyyan waan ku jeclahay idan waxay u jawaabaysaa aniga ayaa ka daran kadibna waxay xigayeen muuqaale iyo jaceyl iyo dhunkasho iyo halkaas ay ku wadaagayeen intaas ayaa muuqaalka lagu tusay gabi ahaanba waa hal goos kooban oo 1 daqiiqo ah oo intaasna lagu tusay xalqada gabi ahaanteed waxaa la daawan doonaa Jimcaha soo socda wixii warar ka soo kordhay taxliil ku saabsan iyo codooyadaas oo dhan gadaal ayaan kaga soo gudbin doonaa qodobka wadaal halkaas ayaan kaga bixinaa qodobka labaad waxaan galeynaa Bravas iyo ninkii taageerayay ee dabaqa dheer iska soo tuuri rabay new superstar Bravas ayaa dhexda kaga jira guusha filimkiisa saaho qaybo ka mid ah wuxuu noqday atooraha laga daba dhacay taageerayaasha fara badanna ilaa hatarna wuxuu u dabaaldegaya guusha filimkiisa saaho oo Hindi oo dhan ka soo xareeyay 300 oo karoor lacag sare u dhaafayaan haddaba taageerayaasha isjilaagan aad ay u sii fara badanayaan oo sanadka ka dambayso way sii karar qaadanayaan waa laga daba dhacaya Hindi oo dhan superstar-ka ka dhaxay ayuu hadeer noqday oo filim ka wada iibin kara waxaana u sabab ah guushii weyneed oo filimkiisii Baahubali labada qaybood uu ka gaaray kadib wuxuu noqday jilaal laga daba dhacay oo Hindi oo dhan taageero fara badan kule hadeerna xitaa Bollywood inuu ku soo biiro ayaa goordhow la filaya oo jilayaasha caanka ah ee superstarada waaweyn ah inuu la shaqeeyo dhawaan ayay ahayd markii mid ka mid ah taageerayaasha Bravas koronto qabsatay kuna geeriyooday isagoo tiyaatarka u jooga daawashada filimka Bravas shilkaas kadib hadeer waxaa la arkay taageere kale oo lala yaabay fal uu ku kacay taageerahan sida waalida u taageero Bravas ayaa fuulay dabaq dherer badan oo shirkad isgaarsiinta taleefanada leedahay kuna yaala xaafad ka mid ah reer Telugu wuxuuna ku hanjabay inuu dabaqaas iska soo tuuri doono haddii uusan la kulmin Bravas cid ii soo dhawaan karta ma lahan ayuu yiri ninkani haddii kale waan istuurayaa wuxuu dalbaday isla goobta waliba isla waqtigaas in Bravas goobta ugu yimaado si uu la kulmo markaasna riyadiisii ugu rumowdo waana fal waali ah oo ku kacay ninkan wuxuu taageero waaliha uu yahay jilaagan wuxuuna ku hanjabay inuu meesha iska soo tuuri doono haddii kaleetana Bravas si dhaqsi ah loo xiriiray si uu meesha ugu imaado uguna la kulmo si kale uu la kulmo jilaagan ayuu weeyay kadibna falkan xun ayuu ku kacay mana ahan markii ugu horeysay qof falkan oo kaleeto ku kaco si uu la kulmo qofka uu taageera u yahay wax warar ah hadeer lagama hayo haddii Bravas sheekadan loo sheegay iyo ninkaas inuu geeriyooday ama la badbaadiyay wixii war ka soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa iyo haddii Bravas uu goobta ugu tagay misana uu la kulmay
taageerayaal fara badan oo sidan oo kale sameeyaan way iska jiraan dunida, si qaar ah kuwa Bollywoodka. Waxaan dhowaan ama sanadkii hore la maqlay qof taageero u ah jilaaga Amir Khan oo 700 oo kiiloomitir soo lugayay si uu la kulmo Amir Khan. Sidoo kaleetana 15 gabdhood ayaa seexdeen guriga jilaaga caanka Farron dhawaan si ay isaga oo la kulmaan. Taageero weyn ayayna u yihiin, waxbarashadoodii ayay kasoo tageen 3 maalmood xiriir ah waxay seexdeen hotel yar oo kasoo horjeedo guriga Farron dhawaan si ay ula kulmaan Farron dhawaan. Marka taageerayaashan ku kacaya taageerayaashan ku nool dalka Hindiya misna ku kacan falalka la yaab kale ma ahna markii ugu horeysay. Jilaa walbana wuxuu ku dhaqaaqaa siduu ku badbaadin lahaa dadkii uu taageeraha u ahaa, iyagoo dalabkoodiina si dhaqsi ah ku ajiibaan. Goordhow ayayna ahayd bishii December dhammaadkeedii markii taageero uu ku hanjabay inuu isdili doono haddii Shah Rukh Khan uusan ku dhawaaqin 1 Janaayo filimkiisii xiga, maadaama Shah Rukh Khan hal sano ama 2 sano ku dhawaad uu hawada ka maqnaa si uusan wax filim ah la imaanin. Marka mid ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ku hanjabay inuu isdili doono haddii uu Shah Rukh Khan ku dhawaaqi waayo filimkiisii xiga, maadaama aad loogu xiisay. Marka ma ahan wax cusub faralkan oo kaleeto dadku ku kacayaan. haddaba qodobka labaad halkaas ayaan kaga bixinay. Qodobka saddexaad waxaan gelaynaa ganacsiga filimada Tanhaji iyo Jabak ee tiyaatarada saaran. Filimka Tanhaji The Unsung Warrior ayaa ganacsi heer sare sameeyay 3 maalin ugu horeysay, isagoona keenay 60 karoor oo nadiif ah canshuurta kadib, waana ganacsi heer sare ah. Filimkan oo maalintiisii koowaad dhexdhexaad ah ku furmay ayaa Sabtidii iyo Axadii karaar qaatay, kana faa'iideystay fasaxidii jireen, wuxuuna isku darka labadiisii maalmood kaliya keenay in ka badan 45 karoor, taasi oo muujinaysa sida uu filimkan fasaxi jiray uga faa'iideystay. Tanhaji wuxuu ganacsiga ugu badan ka sameeyay Mumbai iyo hareeraheeda, isagoona halkaas ka keenay 27 karoor, wuxuuna kala mid yahay filimada Bajrao Mastani, balse Bajrao Mastani waxaa la saaray xilliga ciidiga Masiixiga, isagoona iska helay xamaasad iyo fasax sanadkaas cusub ahaa. Tanhaji shalay oo Axad ahayd wuxuu keenay 25.50 karoor oo nadiif ah, isagoona si weyn kaga faa'iideystay fasaxidii jireen, maadaama maalin Axad ay ahayd shaqadana laga nasanayay toddobaadka. Waxaana filimkan shalay usoo daawasho tagay inta badan qoysaska Indiya, isagoona noqday dooqa koowaad ee daawadayaasha maadaama uu tiyaatarka la saaran yahay filimka Jabak. Laga bilaabo maanta oo Isniin ah, filimkan hoos u dhac ayuu filimkan sameyn doonaa. Inkastoo gobolada qaar fasaxi jiraan, haddana wax walba waxay ku xirnaan doontaa sidoo filimkan maanta hoos ugu dhaco ama isku celiyo. Waxaa macquul inuu is celiyay, laakiin hoos u dhac way jiri doontaa maadaama maalin ay shaqo ay tahay oo Isniin way maalin shaqo way. Waxbarashadii iyo shaqadii ayaa lagu kala laabanaa. Haddaba ganacsiga filimkan muddo 3 maalmood waxay kala noqonaysaa Jimco inuu soo xiriyay 14.50 karoor, Sabti wuxuu keenay 19.75 karoor, Axadna wuxuu keenay 25.50 karoor. Wadarta guud muddo 3 maalmood wuxuu keenay 59.75 karoor oo ka dhigan 60 karoor inuu keenay. Tanhaji waxaa hogaamiyaalka Ajay Devgan, Saif Ali Khan iyo waliba Kajol, waana filim looga hadlayo taariikh hore iyo boqortooyo hore. Waxaana la dirkaa Saif Ali Khan halka Ajay Devgan uu ku jilay dagaalyahan geesi ah oo raba inuu badbaadiyo qalcad la isku haysto. Dhanka kale, filimka Jabak iyo hogaamiye ka tahay Deepika Padukone ayaa 3 maalin ugu horeysay soo xiriyay kaliya 18 karoor, waana ganacsi laga filayay 2 maalin ugu horeysay inuu keeni doono ayaa 18 karoor. Waxaa laga filayay 2 maalin ugu horeysay inuu keeni doono, balse filimkan ayaa si liito ku bilowday faktiisii hore ama maalintiisii koowaad. Jabak shalay oo Axad ahayd sidoo kalena maalin fasax ahayd kama faa'iideysan, wuxuuna keenay kaliya 7 karoor, isagoona ganacsigiisii Sabtida mid la mid ah keenay, walow uu dheer yahay 50 lag. Haddana waxaa la sheego ma ahan, waxaana shalay la rabay inuu ugu yaraan 10 karoor keeno si filimkan naf ugu soo laabato, balse ma dhicin midaas. Jabak fariinta waxaa beersan yahay waa mid heer sare ah, balse caqabad waxaa ku noqotay qaabka fariintiisii loo dhigay oo noqotay mid aad u liidato, isla markaasna daawadayaasha tiyaatarka kusoo jiidi karin. Waxaana dambiga ugu weyn leh directorka filimkan oo sheekadan hab aan wanaagsaneyn u dhigtay. Haddaba Jabak 3 maalmood oo tiyaatarada saarnaa
wadarta guud imisa ayuu keenay siduus u kala keenay saddexda maalin. Sabti wuxuu keenay 4 dhibic, Jimco wuxuu keenay 4.50 karoor. Maalintii koowaad ee tiyaatarada la saaray Jimco ay ahayd wuxuu keenay 4.50 karoor. Maalintii Sabtida waa maalintiisii labaad wuxuu keenay 6.50 karoor. sidoo kale tan maalintii Axad waa maalintiisii saddexaad ahayd wuxuu keenay 7 karoor. sidaas ayuu wadarta guud 18 karoor ku keenay. balse jabag saddex caqabad ayaa iskugu tagtay, sidaas ayuu ganacsi gaban ku sameynaya. caqabada koowaad ee jabag haysata waxay tahay, waxaan wada ogeyn in gudaha Hindiya ay ka wada socdeen dibadbaxyo iyo qalalaaso la xiriira sharciga jinsiyadda wadankaas oo muslimiinta wadankaas si weyn loogu faquuqay, waxaana ka dambeeya xisbiga talada wadanka hay ee BJP, waana xisbiga Hinduuga xag jirka ah. waxaana dhacday in ardayda jaamacadda JNU University jirdil loo geysto, waana arday muslimiin ah iyadoona jaamacadan ay Delhi ku taalo, waxaana ardayda jaamacadan ka soo horjeedeen nidaamka xisbiga Hinduuga, sidaas awgeed ayaana jirdilkaas lagu geystay. booliska Indiya waa ogyihiin dadka jirdilka ka mas'uulka ah, balse way iska indhatireen maadaama dadka la jirdilay muslimiin yihiin. sidaas awgeed Deepika oo xisiisin u sameynaysay filimkeeda Jabag ayaa ardaydaasi booqasho ugu tagtay, iyadoona sidoo kale jaamacadda booqatay, taasoo sababtay in xisbiga BJP iyo Hinduuga wadankaasi ku kacaan, ayagoona go'aansaday inaysan gebi ahaanba filimkeedii Jabag daawan. sidoo kalena waxay weerar kaga soo qaadeen dhanka iyo baraha bulshada, iyadoo xitaa la sheegay in nafteedii ay halis gashay. arrintan waa caqabada ugu weyn ee filimka Deepika wajahay, maadaama mawjad siyaasadeed uu bartanka kaga dhacay xilli ay Deepika islahayd qalalaasan uga faa'iidaysadii badmaafada, se yeeshee toogtan way ku dhiiqatay oo baxar ay dhanka dhaxda ka gashay, oo filimkeedii wax hadal hayna muusan helin, xitaa dadkii ayaaba ku kaceen oo tiyaatarada umaysan soo daawasho tagin. caqabada labaad ee Jabag qabsatay waxay tahay, arrinta labaad waxay tahay fariinta filimkan oo loo dhigay si aan wanaagsaneyn, taasoo daawadayaasha marnaba xiisay u yeeleenin, waxaana dembigaas leh directorka gabadha ah ee Meghana Gulsar lagu magacaabo oo filimkan fariintiisa ku ciyaartay, balse jiliinka Deepika iyo fariinta guud ee filimka xambaarsan yahay waa heer sare. caqabada saddexaad ayaa ah in filimkan lala saaray filimo waaweyn misna jilayaal badan la isugu keenay, waana filimka Tanhaji uu hogaamiye ka yahay superstar Ajay Devgan, kaasoo sheeko ahaan si weyn loo ammaanay daawadayaashana ka heleen. waxaa kaloo Ajay la jilayay filimkan Saif Ali Khan iyo Kajal, sidaan hore idinkula wadaagnay. waxaa kaloo tiyaatarada saaran filimka Darbar ee uu superstar Rajinikanth hogaamiye ka yahay, sidoo kalena Sunil Shetty door wacan ku leeyahay. haddaba saddexdaas caqabad ayay filimka Jabag iskugu tagtay oo ganacsi gaaban ku sameynaya. mooyee haddii saddexdaas caqabad jiri lahayn mar hore ayuu soo karar qaadan lahaa, sidoo kalena xilli hore ayuuba wadadii guusha ku dhici lahaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna qodobadii maanta idinku ugu talagalnay iyo saddexdii mowduuc halkan ku falanqeynaynay. intaa dib dambe iskugu kulmi doona waa kanaalkeeni Filmsad Media oo idin leh dib iskugu soo laabashana wanaagsan. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.